بسم الله الرحمن الرحيم. كل وناكسن صباح وناكسن برلمانك جمهورية سوماليا waxa uu sanad walba ka doodaa isla markaana meel mariya xeerka qoondada miisaaniyadda loogu talagalay in hay'adaha dawladdu ay ku shaqeeyaan kuna fuliyaan adeegyada guud ee dawladdu siiso dadweynaha. wasaaradda maaliyadda oo u xil saaran dhaqangelinta miisaaniyadda ayaa hay'adaha dawladda gaarsiisa intii la heli karo miisaaniyaddii baarlamaanku saxiixay ee loo qoondeeyay hay'adahaas si waafaqsan qodobka 45aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud sharci lambar 17 soo baxay 25 December 2019. xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda ayaa diyaariya warbixin maaliyadeedka sanadka dhamaaday oo aan baaris marin ama unaudited financial statement ee sanduuqa midaysan ee qaranka una gudbiya hantidhowraha guud muddo aan ka badnayn 4 bil kadib dhammaadka sanad maaliyadeedkaas oo ah 30 Abriil sanad walba. hantidhowraha guud ayaa baaris ku sameeya warbixinta maaliyadeed ee sanadka dhammaaday ee sanduuqa midaysan ee qaranka kadibna waxa uu warbixintiisa baarista maaliyadeed u gudbiyaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyada oo ay waajib tahay in warbixinta hantidhowrku aysan muddo 2 bil ah dib uga dhicin laga soo bilaabo markii uu xafiiska xisaabiyaha guud ka helay warbixin maaliyadeedka aan baarista marin taas oo ah 30 Juun sanad walba. hantidhowraha guud ee qaranka waa inuu ku faafiyo warbixinta baarista faafinta rasmiga ah si caam ahna loogu bandhigo dadweynaha 1 bil kadib marka uu warbixintiisa u gudbiyo baarlamaanka. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu baaris hantidhowris oo madax bannaan ku sameeyay hay'adaha wasaaradaha waaxyaha dawladda iyo shirkadaha ay dawladdu leedahay ama ay kula jirto heshiisyada dheef wadaagga ah si waafaqsan sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sharci lambar 34 soo baxay 14 Abriil 1972. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu mas'uul ka yahay una xil saaran yahay inuu baaris hantidhowris ku sameeyo dhammaan dakhliga iyo kharashaadka dawladda, mashaariicda, deeqaha, hantida guurtada iyo maguurtada ee dawladda, deymaha dawladda, sare u qaadista isla xisaabtanka, daahfurnaanta, ka qayb qaadashada hagaajinta nidaamka xukunka iyo ku dhaqanka sharciga oo dhammaan lafdhabar u ah baarista hantidhowr ee xafiiska fuliyo. baarista hantidhowrka waxaa lagu qiimeeyaa tayada maareynta maaliyadda guud ee dawladda iyo u hoggaansanaanta shuruucda, taasina waxa ay ka qayb qaadataa kor u qaadidda adeeg bixinta hay'adaha dawladda. xafiiska hantidhowrku waxa kale oo uu xil saaran yahay inuu hubin iyo diiwaangelin hore ku sameeyo qarashaadka ka hor inta aan la isticmaalin. baarista hantidhowristana waxa uu fuliyaa isaga oo raacaya shuruucda dalka ee hagta habsocodka hay'adaha dawladda iyo sidoo kale heerarka hay'adaha hantidhowrka guud ee caalamiga ah ama adduunka. markii koowaad muddada dhowr iyo 20 sano ah ee dib u kabashada iyo dib u dhiska dawladdu socdo, xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu ku guuleystay inuu si waqtiyeysan oo waafaqsan qodobka 54aad ee xeerka maareynta maaliyadda guud farqadiisa 4aad u soo saaro warbixinada baarista sanadlaha ah
uguna gudbiyo labada aqal ee baarlamaanka xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xafiiska xukuumadda federaalka Soomaaliyeed isla markaana si caam ah ula wadaago dadweynaha. haddaba waxa aan halkan kula wadaagayaa dadweynaha warbaahinta iyo bahwadaagta xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka natiijada warbixinta 3 baaris oo aan u soo saarnay si waafaqsan sharciga hantidhowrka sharci lambar 34 Abriil 1972 iyo sharciga maareynta maaliyadda guud sharci lambar 17 December 2019. saddexdaas baaris oo hadda diyaar ah ayaa kala ah warbixinta baarista u hoggaansanaanta sharciga ama compliance audit report oo diiradda saarta heerka u hoggaansanaanta iyo ku dhaqanka sharciga ee hay'adaha dawladda ee sanadkii 2022. warbixinta baarista maaliyadeed ama financial audit report oo diiradda saarta in xisaab xirka uu sameeyay xafiiska xisaabiyaha guud sanad maaliyadeedka dhamaaday ee 31 December 2022 uu ahaa mid si sax ah loo diyaariyay iyo in warbixinta baarista gaarka ah oo qusaysa safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay ku leedahay dibadda qaarkood. ujeedada faafinta iyo soo saaridda dhammaan baaritaanada hantidhowrku fuliyo iyo talada hantidhowr ee xafiisku ku lifaaqo warbixinadiisa waa in hay-adaha dawladdu dib u saxaan qaladaadka ku soo baxa natiijada baarista hantidhowrka iyo in ay si feejigan u qaataan ugana feejignaadaan dib u soo noqoshada khaladaadkaas. baaritaanada hantidhowr iyo warbixinada uu soo saara xafiiska hantidhowrka guud waxa ay waafaqsan yihiin shuruucda dalka iyo heerarka hay-adaha hantidhowrka guud ee caalamiga ah. waxaa iyana muhiim ah inaad ogaataan in warbixinada baarista hantidhowr ay ku saabsan yihiin sanadka la joogo kii ka horreeyay. sidaas daraaddeed warbixintani waxa ay qusaysaa sanad maaliyadeedkii dhammaaday ee 2022. warbixinta baarista u hoggaansanaanta sharciga ayaan ku bilaabayaa. sanadkii 2022 hay-adaha dawladdu waxa ay ahaayeen 69 hay-adood. miisaaniyadda dawladda ee baarlamaanku ansixiyey waxa ay ahayd 944 milyan oo dollar. miisaaniyaddoodu waxa aan baaris ku sameynay 15 hay-adood iyo 3 safaaradood oo miisaaniyaddoodu dhammayd ku dhawaad 539 milyan oo u dhiganta 57% miisaaniyadda guud ee baarlamaanku meel mariyay sanadka 2022. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku markii uu fuliyey baarista u hoggaansanaanta sharciga ee hay-adaha dawladda iyo hubinta sida ay u isticmaaleen miisaaniyadda qaranka ee baarlamaanku ansixiyey waxaan baaristaas ku ogaaday in 15 hay-adood iyo 3 safaaradood ee la baaray qaarkood ay ka dhaceen qaladaad ay baaristu soo saartay. 15 hay-adood ee xafiiska hantidhowrku ku sameeyey baaristan 2022 ayaa sameeyey wax soo iibsasho iyaga oo aan lahayn qorshaha sanadlaha ah ee iibka. sababaha ugu waaweyn ee horseeday qaladkaas waa maqnaanshaha hay-adda ama guddiga maamulka qandaraaska iibka guud oo dhismaheeda uu farayo qodobka 35 ee sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka sharci lambar 22 soo baxay 9 Agoosto 2016 iyo wax ka beddelka lagu sameeyay sharcigaas ee 2020. dhulal iyo dhismayaal dawladeed oo tiradoodu dhan tahay 436 oo ay leeyihiin hay-adaha la baaray ayaa ka maqan gacantooda, sida dhulalka iyo dhismayaal uu leeyahay ciidanka xoogga dalka, ciidanka qalabka sida guud ahaan, dhulal iyo dhismayaal ay leeyihiin wasaaradaha
iyo wakaaladaha dowladda. saddex sagaal hay-adood oo ka mid ah 15 hay-adood ee ay qusayso baaristan 2022 ayaan samayn waaxda ama qaybta baarista gudaha ama sargaalka baaraha gudaha. khaladaadkan iyo kuwo kale oo warbixinta ku jira waxa ay ku soo noqnoqdeen natiijada baarista hanti dhowrku fuliyey sanadihii 2019 2020 iyo 2021 sidaas oo kalena waxa ay ku jireen 2022. sidaas awgeed waxa aan xusuusinayaa madaxda hay-adaha dowladda iyo saraakiisha idman ee wasaaradaha shirkadaha ay dowladda Soomaaliya la tahay dheef wadaagga iyo cid kasta oo ku leh awood maamul inay tahay qadcas iyo lama taabtaan adeegsiga akoono ama xisaabaad ka baxsan qasnada dhexe ee dowladda ama aan ogolaansho qoraal ka haysan xisaabiyaha guud. warbixinta baarista maaliyadeed ama xisaab xirka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sanad walba diyaariya xafiiska xisaabiyaha guud iyada oo ay warbixintaasi ku jiraan xogta dakhliga dowladda soo galay, qarashka ka baxay, ilihii dakhligu uu ka soo xarooday iyo meelihii uu ku baxay, deymaha ay dowladdu gashay iyo mucaamalaadka kale ee maaliga ah. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxa uu baaris hantidhowr madax bannaan ku sameeyaa warbixinta xisaab xirka maaliyadeed ee xafiiska xisaabiyaha guud soo gudbiyey, isaga oo hubiya in si sax ah loo diyaariyey ayna waafaqsan tahay sharciga iyo heerarka caalamiga ah ee xisaabaadka dowladda. baarista kadib waxa aan ku lifaaqaa aragtidayda hantidhowriseed ama audit opinion, taas oo ku qotonta in warbixinta baarista maaliyadeed ay tahay mid sax ah, dhammaystiran, ka hufan, kana madax bannaan wax khalad ah. si guud aragtida ama fikradaha baarista warbixinta maaliyadeed ee hantidhowrka guud bixiyo waxaa lagu saleeyaa mid ka mid ah 4 heer ee soo socota ama kala ah: fikrad nadiif ah ama unqualified opinion oo loola jeedo xisaab xir loo diyaariyey si saxan; fikrad cilad leh ama qualified opinion oo loola jeedo xisaab xir loo diyaariyey si saxan balse leh qaladaad yar; fikrad cilad weyn leh ama adverse opinion oo loola jeedo xisaab xir loo diyaariyey si aan saxnayn ama aan sax ahayn; iyo fikrad gaabsi ama disclaimer opinion oo loola jeedo xisaab xir aan lahayn caddaymo ku filan ama ku habboon. haddaba maadaama warbixinta baarista maaliyadeed oo aan ula jeedo ama loola jeedo xisaab xirka sanadka 2022 si saxan loo soo diyaariyey balse ay leedahay khaladaad yar, waxa aan ka dhiibtay fikradda la yiraahdo fikrad cilad leh ama qualified opinion. fikrad cilad leh ama qualified opinion waxa ay tilmaamaysaa in warbixinta maaliyadeed ama xisaab xirka si saxan loo diyaariyey balse ay leedahay khaladaad yar oo meelaha qaar taabanaya. sababaha aan u cuskaday inaan fikrad cilad leh ka bixiyo warbixinta maaliyadeed ee xafiiska xisaabiyaha guud u soo gudbiyo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka bishii Abriil 2023 waxaa ka mid ah: 1. xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladdu kuma darin warbixintiisa maaliyadeed ee uu la wadaagay xafiiska hantidhowrka dukumeentiyada taageeraya ama caddaynaya xisaab celinta lacag dhan 9,300,000 oo si toos ah bangiga dhexe ee Soomaaliya ugu diray gobolka Banaadir, rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo bangiga horumarinta Soomaaliyeed si aan si madax bannaan ugu xaqiijiyo
in lacagahaas ay yihiin xisaabaad ku saxan sidii loo bixiyey. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laba heshiis oo dheef wadaag ah ama concession contracts la gashay labada shirkadood ee kala ah Fafori LCC oo maamusha garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport iyo Albayrag oo maamusha dekedda Muqdisho. haddaba si waafaqsan qodobka 12.2 xarfaha a iyo ba ee qandaraaska dheef wadaagga ah ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ay la gashay shirkadda Fafori LCC ayaa dhigaya in adeeg bixiyuhu uu u soo gudbiyo dowladda warbixin soo martay baaris hanti dhowr ugu dambeyn 90 maalin kadib dhammaadka sanad walba. si la mid ah sidaas qodobka 11.2 farqadda 11.2.3 ee heshiiska dheef wadaagga ah ee dowladda Soomaaliya ay la gashay shirkadda Albayrag ayaa dhigaya in maamulka shirkaddu uu xisaabiyaha guud ee dowladda Soomaaliyeed u soo gudbiyo warbixin soo martay baaris hanti dhowr 4 bil gudahood marka uu dhammaado sanad qandaraaseedka. si waafaqsan heshiisyada dheef wadaagga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya kula jirto shirkadaha Fafori LCC iyo Albayrag waxa ay dowladdu xaq u leedahay inay hesho 25% dakhliga ay qabato shirkadda Fafori LCC iyo 62.17% dakhliga ay qabato shirkadda Albayrag. hase ahaatee labada shirkadood middoodna lama wadaagin xisaabiyaha guud ee dowladda warbixintooda maaliyadeed oo soo martay baaris hanti dhowr si loo caddeeyo cadadka lacageed ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ee yeelanayso. sidaas daraaddeed awood uma yeelan mana arkin si madax bannaan macluumaad aan ku xaqiijiyo in khidmadda dheef wadaagga ah oo dhan 32.4 milyan ay tahay mid si dhab ah loo xisaabiyey marka la fiiriyo cadadka dakhliga ay labada shirkadood qabteen iyo saamiga dheef wadaagga ah ee dowladda Soomaaliya uga soo aadaya dakhligaas. dakhli dhan 1.9 milyan oo ay qabteen hay-adaha kale ah safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Kenya, safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Turkiga iyo safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Jarmalka ayaan loo maamulin si wanaagsan looguna darin warbixinta maaliyadeed ee dowladda. marka la eego khaladaadkaas ka dhacay hay-adaha ay baaristu qusaysay waxa aan fikrad cilad leh ama qualified opinion ka bixiyey warbixinta baarista maaliyadeed ama xisaab xirka sanadka 2022 ee loo soo gudbiyo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka. taas oo macnaheedu yahay in xisaab xirku yahay xisaab xir nadiif ah, sax ah, balse leh qaladaad yar. warbixinta baarista gaarka ah oo qusaysa safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee dibadda qaarkood waxa aan baarnay 3 safaaradood oo kala ah safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Kenya, Jarmalka iyo Turkiga. 3 safaaradood ee Soomaaliya ku leedahay 3 wadan. waxyaabaha khaladka ah ee ku soo baxay baarista waxaa ka mid ah xeerka iyo tariifada aruurinta dakhliga safaaradaha oo aan la hirgelin oo aysan hirgelin. waxaan baarista ku ogaanay in aysan jirin xeerar iyo tariifo gaar ah oo ay safaaraduhu dhaqan geliyeen oo lagu aruuriyo dakhliga safaaradaha 3 ah ee la baaray. dakhliga ay aruuriyeen safaaradaha la baaray oo dhan 3 milyan oo dollar ayaan lagu soo shubin qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo sidoo kale dakhliga qaar lagu qabtay cadaan ama cash. arrintaas oo meesha ka saaraysa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka.
safaaradaha la baaray ma lahayn midda afaraad qorshe miisaaniyadeed gaar ah oo ku aadan dakhliga iyo qarashaadka ay maamulaan. waa mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. magaca igu celi. waayahay nimco muxudiin cardoofe waa mahadsan tahay. khaladkaas waxaa lagu helay warbixinta hoggaansanaanta sharciga ama warbixinta baarista hoggaansanaanta sharciga ee sanadkii 2022. waa heshiis ay galeen 7 hay-adood. heshiisay la galeen hay-ado caalami ah. waxay ahayd inay helaan lacagtaas oo dhammaystiran, laakiin ma aysa helin. waxay heleen 9.8 dhowr iyo 8 iyo xoogaa kalena maysa helin. waa heshiis ay hay-adahaasi kula jiraan hay-ado caalami ah oo laga yaabo inay helaan sanadka hadda aan ku jirno haddii ilaahay idmo 9 milyan dhibic 8 oo ay heleen oyna qarash gareeyeenna xisaab xirka dowladda waxaa loogu xusay si sax ah oo waafaqsan nidaamka xisaabaadka dowladda. sidaa la socotaan ama laga yaabo in qaarkiin og yihiin, khaladkaasi waa khalad ku jiray warbixinada hanti dhowrka laga soo bilaabo 2019 sababtana waxay tahay oo la wada og yahay in safaaraduhu lacagta ay qabtaan aysan la wadaagin qasnada dhexe ee dowladda. ha ahaata habraaca, ha ahaata sharciga, caadiyanna waa mamnuuc. waana reeban tahay in dakhli meeshii lagu qabtay lagu isticmaalo. duruufta jirta dhinaca sharciga, dhinaca habraaca waa suuragal, laakiin totally waxa saxda ah la isku raacsan yahay waxay tahay dakhli laguma isticmaali karo, laguma isticmaali karo meeshii lagu qabto. safaaradaha waa sax 3 milyan ay qabteen 2022 waana isticmaaleen. cillad jirta oo systemkeena ku jirta waaye haddii ilaahay idmana talooyinkaasina waxaan rajaynaynaa inay saxaan oo lacagta ay qabtaan ay aado qasnada dhexe ee dowladda, halkaasna ay ka helaan qarashka ay u baahan yihiin ama running costigooda. waa mahadsantii. safaaradaha qaar waxaad sheegteen in la baaray balse aysan lahayn qorshe miisaaniyadeed oo gaar ah oo ku aadan dakhliga iyo qarashaadka ee maamulaan. maadaama safaaradaha iyo sidoo kale gaaradaha dowladda ay ka mid yihiin, maxaa diiday in miisaaniyad gaar loo sameeyo oo lagula xisaabtamo? hadda cudurdaar ma heli karaan maadaama aysan miisaaniyad gaar ay samaysan? haddaan saxanahay waxaa tiri waa cabdisalaan juule shaakir. waa mahadsanta cabdisalaan. su-aasha hore waxaa la yidhaahdaa miisaaniyadda aan dakhliga ku jirin ama off the budget. off the budget ama miisaaniyadda dakhliga miisaaniyadda dheeriga ka ah waa contract. hadda waa heshiisyo. sababta aan loogu darin in lagu daray ahayd sida saxda ah. sababta aan loogu darin
28 milyan dhibic 89 lacagtaas ka mid ah hay-adahaasi maanay helin ilaa hadda ballanqaaday ahayd hay-ada caalami ay u ballan qaadeen inay heli doonaan laakiin maanay helin waxay ahayd inta soo hartay way heleen waa isticmaaleen in miisaaniyadda lagu daray ahayd laakiin duruufta iyo xaaladda jirta waa suuragal waase sax sida loogu soo xusay xisaab xirka dowladda safaaradaha waxay ka mid yihiin hay-adaha dowladda Soomaaliya ee qaabilsan arrimaha dibadda ka shaqeeya dakhliga qabteen waani ku sheegay sida saxda waxay tahay dakhli kasta oo lagu qabto magaca dowladda Soomaaliya waa inuu aado qasnada dhexe ee dowladda si waafaqsan xeerka maareynta maaliyadda guud ee soo baxay 2019 ama xeer lambar 17 waa raadi kartaan waana akhri kartaan dakhli kasta oo loo qabto oo magaca dowladda lagu qabto waa inuu aadaa qasnada dhexe qof walba oo dakhliga ku isticmaala meeshii uu ku qabtana wuxuu jabiyay sharcigaas markaas talooyinka aan bixinay sanadkan iyo sanadkii horeba waxaan rajeynaa iyaguna waa gaartay fariinta ah dakhliga dowladda magaceeda lagu qabto waa inuu aadaa qasnada midaysan ee qaranka waa aqbaleen waana qaateen ilaahayna waxaan ka rajeynaa inay fuliyaan يا شباب التيم كان سعداء أنت لو حنا بينا فويديو وحد شايفتي إن دول عيدا كحوج الدلك اللي من عات الدولة كما كان هاي دول كاس سدود كما كان هاي سلسلة عات الدولة وجبح حسن كيف ما تصنت هاي ولك دولة أيليا هاي أما هي أداة الدولة أيليهين waxaad ogtihiin hay-adaha dowladda qaarkood inaysan gacanta ku haynin ama ha ku yaalaan caasimadda ama ha ku yaalaan dowlad goboleedyada waxaa ogtihiin dowladda federaalka Soomaaliyeed waxay dhaxashay dowladdii dhexe ee jirtay 21 sano iyo 9 sano ama 10 sano meelaha 31 sano dowladdii jirtay waxeedii ay lahayd ee hanti ah ayaa dowladda federaalku dhaxashay dowladda federaalku maanta waa laba heerka dowlad goboleedka ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hantida ay leeyihiin ay haystaan waa hantidii dowladda sidaas awgeed muddada yar ee mashaakilka jiray hantidii dowladda waa la dad degeen guriga ka dhigteen kuwa ganacsi ka dhigteen kuwa waxay ka dhigteen meelo ay ku noolaadaan meel ay ku shaqeystaan ciidanka xoogga dalka oo kaliya ma aha hay-ado badan oo dowladda ka mid ah ayaan hantidooda gacanta ku haynin waana waxa laga shaqeynayay markii aan xafiiska qabtay in hantida dowladda aan ku jirin gacanta hay-adihii mas'uulka ka ahaa ay soo laabato xeriyihii dowladda ka xeriyihii ciidanka xoogga dalka ka mid ah waxaa ka mid ah goobihii waxbarashada waxaa ka mid ah goobihii loogu talagalay dalxiiska waxaa ka intaasoo goobado fara badan dowladduna hantidii ay lahayd aad aan u rajeynaa inaad ogtihiin intii la ekeed iyo meelahay taalay qofkii rabana wuxuu fiirin karaa buugga la yiraahdo buugga hantida guud ee dowladda oo la soo saaray 2021 ramaadanta haddaad akhriso xeerka cusub ee maareynta maaliyadda guud iyo dastuurka hadda kadib dowlad kasta oo ka mid ah dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada ka mid ah waxay yeelanayaan hanti dhowro guud oo u gaar ah oo inline la ah ama la shaqeeya hanti dhowraha guud ee federaalka gobolka Banaadir weli ma laha hanti dhowro guud oo u gaar ah meesha ay kala yihiin dowlad goboleedyada kale xafiiska hanti dhowro guud ee qaranku ma baaro hadda dakhliga u gaarka ah gobolka Banaadir ayada oo la raacayo in dowlad goboleedyadu ay leeyihiin hanti dhowro iyo xafiisyo u gaar ah oo baara dakhligooda gudaha laakiin xafiiskani wuxuu baaraa 15% oo gobolka Banaadir uu ka helo dakhliga ama canshuurta ka soo xaroota dekedda magaalada Muqdisho taas waa baarnaa inta kalena ilaahay waxaan ka rajeynayaa marka xaaladdu hagaagto oo gobolku state-kiisku isbedelo
oo meel uu yeesho in go-aan laga gaari doono waana go-aan u yaalla madaxda sare ee dowladda. sida ka muuqata warbixin maaliyadeed hantidoorka uu soo saaray baaris sax laguma sameeyo shirkadaha Carrefour iyo Albayan. hantidoorka miyaa awood u lahayn inuu baaro shirkadahaasi dalka usoo shaqo tagay dibadda iyo boorka ka shaqeeya. dhanka kale waxaa muuqda in sug baaris sax laguma sameeyo maxaa ujeedaa xagee ku qoran tahay baaris sax laguma sameeyo qoran ku caddeeyay maya kuma qorno rawaan ay soo gudbiyeen maya baaris sax laguma sameyn kuma qorno qoraal ha marin habaabinin baaris sax laguma sameyn maaha maya baaris sax laguma sameyn meel kuma taalo igaarkii ha qaldan adiga anaga ma baarnaba caadiyan waxaa sida caadiyan concession contract waxa la yiraahdo heshiiska dheef wadaagga waxa la yiraahdo waxa laga rabaa Fafuri iyo Albayrak financial statementigooda warbixintooda maaliyadeed sanad kasta inay mariyaan hanti dhowr madax bannaan. ifahmaysa hanti dhowr madax bannaan oo caalami ah inay kireystaan si cadaalad loo baaro oo dawladana ahayn ayagana ahayn uu soo saaro hanti dhowr madax bannaan la yiraahdo. hanti dhowr madax bannaan waa shirkado professional ah oo quseeya baarista waa caalami waa la yaqaana waa raadin kartaan sharciga waxaa ku qoran waa inuu soo maraa financial statementigoodu hanti dhowr madax bannaan kii dowladda aan ahayn ayaga mid leeyihiin aan ahayn hanti dhowrkaasi uu sheego dakhliga soo galay shirkad kasta kadibna xisaab loo diro financial statementigaas loo diro xisaabiyaha guud oo meesha kala socdo ma aysa sameyn waayo marka labada shirkadoodba ma sameynin baaris madax bannaan oo ku saabsan xisaab xirkooda maaliyadeed ee sanadkaas. saas awgeed waxaan kaa codsanayaa baaris sax lama sameynin meesha kuma jirto. waxaan kaa rajaynayaa maadaama aad journalist tahay inaad sameynin misleading. su-aashaada kale shakhsiyaad aan buuxin shuruudaha diblomaasiyadda loo magacaabo shaqada arrimaha dibadda loo magacaabo shakhsiyaadkaas tilaabooyinka ay qaadeen annaga tallaabo ma qaadno safaarad tallaabo kama qaadno cid tallaabo kama qaadno sharciga ayaa tallaabo ka qaada. waxaan baarnaa xaalka suu yahay financially dhaqaale ahaan u hoggaansanaanta sharciga in haddaa meesha fiiriso waxaa ku yaalla sharci la yidhaahdo sharciga arrimaha dibadda oo lambar loo raadin karto sharcigaas inay waafaqeen aan hubinaa iyo inaysa waafaqin. waxaan dabagalnaa inaysa waafaqin aan soo helnay taasaa keentay inaan nidhaahno talaasna waxaa loo diraa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxda sare ayaa go-aanka gaara inay ka qaadayaan inay u daynayaan ayagaa iskale go-aanka annaga tallaabo ma qaadno. qof kale magacaygu waa Cumar Cali Bilaawe ka socda telefishinka SMS 436 dowlad iyo dhismayaal dowladeed ah ayaa warbixinta ku cad inay ku jiraan gacmo gaar ah. dhulalkaas iyo dhismayaashaasi dowladeed muqdisho oo keliya ku yaalaan sidoo kale waxaa jiro dhulal iyo dhismayaal dowladeed oo ganacsato ama dad gaar ah si ku meel gaar ah dowladda ugu kaysay oo sanadihii ama bilihii si bila ah khidmad looga qaato in ka mid yihiin 436 dhulalka iyo dhismayaasha dowladda ee gacanta gaar ah ku jiro. sidoo kale waxaan rabaa in su-aasha labaad uu gudbiyo ay noqoto 15 hay'adood iyo 3 safaaradood ayaa warbixinta ku cad in baaris lagu sameeyey maxaa lagu xushay 15kaasi hay'adood iyo 3 safaaradood ama sidaas. waaya bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay magacayga muxuu ahaa Cumar Cali Dhiblaawe waa mahadsantahay 436 waa aniga hore kugu sheegay dowladdu hay-adaha dowladdu dhulalkii ay lahaayeen ee ay ku magacawnaayeen gacanta kuma wada hayaan ama caasimadda ha ahaato ama ha ahaato dowlad goboleedka. duruuftana waa aniga kuu sheego duruufta jirtay iyo mushkiladda dhacday iyo maalan caasimadda inay usoo qaxeen dad badan oo barakacyaal ah oo xeryihii degeen ayaa sababtay
waana shaqada socota ee ah in alla intii suurtagal ah hantida dowladdu in lagu dhaqo labada sharci ee caanka ah ee sharciga 22 oo ah sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka iyo sharciga maareynta maaliyadda guud labada sharci haddii ilaahay idmo hadda midda socoto laga shaqeynayo waa taas caasimadda ma ku jirtaa dowladda ama federaal ha ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato hal hanti uun baa ka dhaxaysa ciidanka xoogga dalka xerada uu ku leeyahay gobol ciidanka xoogga dalka iska leh waa in ciidanka xoogga dalku isticmaalo haddii uu is isticmaalayna sifa sharciya uusan ku isticmaalayn waa maadsanta maxaa lagu doortay waa la bandhigay inaa la socotay in kale ma aqaano markii halkaan aan imid waxaan saxiixay qorshaha baarista sanadka 2022 qorshahaas ayay ku hafaahsan tahay waa arki kartaa ama wuxuu ku jiraa website-ka ama waa la faafiyey ama waxaa ka heli kartaa social media waxaa la doortaa hay-adda kale intay ka miisaaniyad badan tahay hay-adaha kale intay ka halis iyo khatar dhinaca isticmaalka miisaaniyadda iyo dhinaca u hoggaansanaanta sharciga ay waa badan tahay saasaa lagu xushaa safaaradaha maxaa lagu doortay 5 safaaraday ahaayeen safaaradihii la doortay 2022 in la baaro waxaa la baaray 3dan labadii kale lama baarin cilad oo dhinaca ama safarka ah ama xiriirka ah oo ayadana haddii ilaahay idma aan dib ka dhammayn doono 3daasna waxaa lagu doortay 5taasna waxaa lagu doortay inay yihiin 5 safaaradood ee ugu dakhliga badan safaaradaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dibadda oo si toos ah loogu diray maamulka gobolka Banaadir iyo rugta ganacsiga iyo bangiga horumarinta Soomaaliya maxay tahay sababta uu lacagta loogu diray iyo sababta loogu wadaag waa xafiiska hanti-dhawrka si baaritaan loogu sameeyo lacagtaas su-aasha labaad ee weydiino waxay tahay 1.9 milyan oo ay ururiyeen golaha shacabka iyo safaaradaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Kenya Turkiga iyo Jarmalka ayaa loo maamulin si ayaan ugu darin warbixinta maaliyadeed ee sanadkan sababta loogu dari waa maxay tahay midda hore gobolka Banaadir rugta ganacsiga iyo bangiga horumarinta Soomaaliyeed si sax ah oo sharci ah ay ku qaataan lacagta marka koowaad lacagta loo diritaankeeda habka loo siiyay hab heshiis ah oo la yaqaan waaye habka isticmaalka waa mushkiladu waa habka isticmaalka say u isticmaaleen mushkiladu halkaas say u isticmaaleen sababta aan xisaabiyaha guud aan la wadaagin laftiisa saas awgeed xisaabiyaha guud waxaan isaga la wadaagin lama wadaagi karin xafiiska hanti-dhawrka guud ee qaranka talooyinkeena ku jirtaa hadaa aragteen talooyinkeena ku jirtaa dakhli kasta oo dawladdu leedahay in si sax ah loo qabto si sax ah loo xareeyo si saxan loo isticmaalo su'aasha kale maxay ahayd safaaradaha waa anigu ku uri mushkiladda ku saabsan qabashada dakhliga waaye waxay ku jirtay 19 20 21 22 waa ku jirtaa khaladaadka laga helay safaaradaha ee baarista ku soo baxay ilaahay waxaan ka rajeynayaa madaxdu marka ay report ka helaan waba haystaan inay go'aan gaaraan iyo wasaaradda maaliyadda maamulka dakhliga qabashadiisa xareyntiisa isticmaalkiisu inay marto si waafaqsan xeerka maareynta maaliyadda guud laakiin waa cilad jirta oo jirtay muddo dheerna in la xaliyana ay u baahan tahay go'aan la gaaro haddii ilaahay waa mahadsanta aada u mahadsantihiin subax wanaagsan